sahamiska ee Afrika gudaheeda iyo sababihii keenay ka ganacsiga dadyooga Afrika. Hawshiisu waxay ahayd hawl uu qof qabto tii ugu xumayd inta ay taariikhdu ogtahay. Inkasta oo dadka hawshaas fulinayay ay naftoodu ay dareemayeen foolxumooyinkaasi, haddana may doonayn in ay faraha kala baxaan. qarniyaal badan xiriirka u dhexeeya Afrika iyo ninka cad waxa uu ku koobnaa ka ganacsiga dadyooga Afrika. qaaradaha Yurub iyo Ameerika oo hawsha abaanduulayaal ka ahaa, waxa uu xiriirkaasi uu soo hooyay macaash la helo kii ugu badnaa uguna weynaa. kacaanadii sancada ee reer Yurub iyo Ameerika ka dhashay iyo heerka sare ee nolosha Yurub iyo Ameerika ay maanta joogto, saldhigyadooda waxaa kaalin weyn ka galay muruqii ninka madow ee la adoonsanayay iyo ka ganacsigiisii. inkasta oo Yurub iyo Ameerika ay qarniyaal badan xiriir la lahaayeen Afrika, haddana aqoon umay lahayn juquraafiyadeeda iyo sida gudaheeda loogu nool yahay. ilaa qarnigii 19aad, aqoonta ninka cad ee Afrika waxa ay ku koobnayd xeebaha iyo meelaha aan ka fogeyn oo muhiim ugu ahaa ugaarsiga dadka madow. sida ay runtu tahay, intii ka horreysay qarnigii 18aad dabayaaqadiisii, qaaradaha Yurub iyo Ameerika umay baahnayn in ay qaaradda Afrika dhex galaan ama ay la yeeshaan xiriir ka baxsan ka ganacsiga dadka madow. sababtuna waxay ahayd iyada oo macaashka uu ninka cadi ka helayo ama uu ku qabay ka ganacsiga ninka madow ee Afrika aanu filayn in ay suuragal tahay. qarnigii 18aad dabayaaqadiisii dambe iyo wixii ka dambeeyay, xaalku wuu isbedelay, waxaana dowladaha Yurub iyo Ameerika khasab ku noqotay in ay faraha kala baxaan ka ganacsiga dadka madow. ka ganacsiga dadka madow joojintiisa waxaa ninka cad kaga lumi lahaa faa'iidooyin badan, waxaana aan shaki lahayn in dowladaha Yurub iyo Ameerikaba ay ciriiri weyn ka geli lahaayeen xagga dhaqaalaha iyo nolosha guudba haddii aanay raadin tab cusub oo ay macaashkoodii ku soo celin karaan.